waxaan u mahadcelinayaa macallimiintii soo saartay ardayda wanaagsan ee maanta waxa wanaag badan soo bandhigay arday khayr Allah siiyo waxa madaarista ka muuqdo horumar ama tadawur ee inay hor u socdaan madaaristii xilliga hore quraanka aan baran jirnay quraanka bisaan baran jirnay xifdin jirnay maanta arday quraankana xifdisan ee kutubtii funuuntii cilmu tajwiidkana xifdisan fiqhigii iyo siiradii iyo aqeedadii kulli bartay lama heli kara macnaha waxa waaye waa casriga iyo jaanlaqaadka waxa waaye zamanka qaabka ugu socdo taasa faa'iideynaysa insha Allah waxaan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad macallimiinta soo saartay ardaydaasi ee maanta soo bandhigtay culumtaas iyo quraanka kariimta iyo culumtiisii iyo funuunta kalaba waxa kale oo u mahadcelinayaa waalidiintii juhdiga ku soo bixiyay ardayda maanta quraanka gabagabaysay ee dhameysay ee soo bandhigtay quraankii ay barteen soo bandhigtay culumtii halka madrasada Nuurul Huda ay ka barteen waalidiintaasna aad bay u sharfin yihiin ilmahooda waxay tarbiyo wanaagsan iyo waxay u dhiibeen dad ahal u ah quraanka baritaankiisa ilmaha nutqiga ay ku hadlaayeen ama tajwiidka ay akhrinayeen waa tajwiid aad u wanaagsan insha Allah marka waxa way Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka hanugu jisay jilsada aan fadhiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanugu xoreeyo marka waxaan ardayda u dardaarmayaa ardayda quraanka xifisay ee maanta shahaadada qaadanaysa sidaad ogtihiin caalamka hadda aan joogno wuxuu noqday caalam karaatiin ama waa shahaado qofka markuu madraso soo dhameeyo waa inuu wato shahaada oo xilliga hore ilaa macallin quraanka soo bartay oo aad u xifsan qusuuca garanayo waxa jiri hadda maanta waxa laga rabaa macallinka soo baxayo inuu nutqiga tajwiidka garanayo inuu khadka carabiga qori kara nusqada iyo ruqcadii uu qori kara inuu ardayga marka waxa waaye qaabkii uu la jaan qaado qaabka waxa waaye hadda casriga socdo marka waa arday la casriyeeyay tajwiidkii garanayo insha Allah ardaas waxaan ugu dardaarmayaa inay quraanka uu ka dhumin inay ku dadaalaan maanta macallinkii inagu soo dadaalay oo inta quraanka ku macnaa u fadhideen inaad mar labaad quraankii dhumisaan taa iska ilaaliya juhdigiina ku bixiya inaad diinta gelisaan waxyaalaha khayrka lagu gaaro waxa waa diin adduunyo aakhira hadaad rabtid waxa waaye cilmiga sharciga baro taasaad meel ku gaari kartaa marka insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma had u sugnaatay waxaan ardayda ku baraarujinayaa inay juhdigooda si laba laabaan maadaama ay dhameeyeen waxa waaye quraankii kariimka ah macaahid ay aadaan macaahid waxa waaye in shahaadooyin yaala kadib ay halka ka sii baxaan ay aadaan jaamacadihi ay socdaan waxbarashada kooma joogto waxa waaye min al-mahdi ila al-lahdi way laga bilaabo darabta ila laga gaaro ilka qabriga intaas cilmiga la wada ee dadaala aad baan ugu faraxsanahay maanta bandhiga ay sameeyeen ardayda madrasada Nuurul Huda waan soo dhaweynayaa insha Allah waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh